safiirka cusub ee Soomaaliland u fadhin doona dalka China oo la magacaabay madaxweynaha Soomaaliland oo ka mahad celiyay sida uu warkaasi mar labaad inoogu soo diray wariyaheena Faysal Yuusuf Kacaan. wakiilka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay dalka Shiinaha Awil Ibrahim Cali oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka dareen celiyay xilka uu madaxweynuhu u magacaabay isagoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uga mahad celiyay xilkan cusub ee uu magacaabay waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam marka hore aad baan idigu mahad celinayaa saaka booqashada aad igu timaadeen igana qaadaysaan waraysigan haddii aanu imaado su'aasha sideed u aragtaa xilkan uu ku magacaabay madaxweynuhu runtii aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waa xil weyn waxaan ilaahay ka baryaa in ilaahay igu asturo run ahaantii sidaad ogsoon tahayba China waa dal runtii aad u weyn dhaqaaliye siyaasadba waana dal aynu u baahanahay inaynu xiriir wanaagsan la sameeyno mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba waxaana filayaa inaan insha Allah guul weyn ka soo hoyn doono xilka weyn uu igmaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo run ahaantii dhiiri gelinaya dhalinyarta iyadoo magacaabidaydani ay daba socoto ballanqaadyadii uu sameeyay waqtigii ololaha uu ku jiray inuu dhiiri gelin doono dhalinyarta Soomaaliland runtii maanta waxaan filayaa inay wax badan ka tari doonto ballanqaadyada dhalinyar badanna ay ku dhiiran doonto inay qarankooda u adeegaan waana uga mahad celinayaa madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba xulashada uu ii xushay inaan ka mid noqdo adeegayaashiisa qaranka waana mahadsantihiin wallahi waa runtaa oo China waa dal siyaasiyan xiran oo runtii aan cilaaqaad badan la sameyn laakiin waxaynu marka hore culayska saari doonaa dhanka ganacsiga oo aynu isku dayeynaa inaynu insha Allah ganacsi badan dhex maro waxaad ogsoon tahay agabka Soomaaliland yimaado boqolkiiba 90 inuu inooga yimaado dalka China macaamilaad fara badan inaynu leenahay dhanka ganacsiga kaas baynu xoojin doonaa insha Allah siyaasiyan waa rajaynayna inaan guul ka gaari doono oo insha Allah cilaaqaad fiican la yeelan doono Faysal Yuusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.